بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بهدينا صحافة داد بهدي الصلابية هدي waxay ugu weydiiseen khudbadii madaxweynaha shalay horta marka ugu horeysa madaxweynaha khudbadiisii waxaan anigu oran karaa malabka daayay aad bay wanaagsaneyd laakiin nin baa waxa la yiri hooyadii baa dhimatay dabeedna aaskii buu ka soo gaari waayay kolkii aaskii laga soo dareeray uu soo noqday ayuu war islaantii si fiican loo aas dabeed waxa lagu yiri hadduu axanku raaco macnaha wax weey haddaad si fiican u axanto aaskeedina waa maasha Allah marka waxaan uga jeedaa madaxweynuhu khudbadiisi way wanaagsanayd laakiin inay hadal u noqoto looba baahnee waa inuu ficil raaca oo xukuumad fulinaysa hawlaha iyo khudbada madaxweynaha waa in la helaa oo aanay noqonin wax af laga yidhiyo qura waxaan kale ka hadli lahaa dhinaca brotokolka madaxweynaha waxaan arkay rag xilal hore hayn jiray wasiiraa oo mar wal oo kastaba madaxweynaha doonaya inaanay wasiiradu ka xigin oo garbinaya oo aad brotokolad xuna oo ay tahay madaxweyne dadka aan xilalka haynin ee ku barbaryaacaya de nidaamka xukuumadeed kuma wanaagsanee protocol wanaagsan oo wasiirkaaga haddii anigoo aan xil haynini aan garbiyo aan doonayo inaan adiga kugu xigo dee dhinaca protocolka aad buu khaldan yahay bal dhinacaana iska hagaaji dhinaca sicir bararka xukuumaddu waynu ognahay oo qodobay soo saartay hase yeeshee khaladaad badan baa jira khaladaadkaas waxa weeye marka dee cadaalad wax u naqayso waxa weeyaan xukuumaddu khalad bay leedahay xagga sixir bararka shirkaduhuna khalad bay leeyihiin ganacsataduna khalad bay leeyihiin laakiin xukuumaddii shirkad keliya ayay khalad ka saarto waxay tidhi kulli fidna cinda geel waxaasoo khalada saad baa wataa saadka waxaynu ognahay dhowr iyo 10 sano u dambeeyey dalka uu ka shaqaynayay doolarkuna caadi buu ahaayo 6500 6700 buu ku ciyaari jiray marka waxa qurux badan weyn ogno waa runno khaladad xagga telesoomtana uu jiraa shirkad kale uu jiraaye inay xukuumaddu khaladkeeda qirato oo iyaduna ay lacag fara badan oo aan serial number lahayn oo suuqa la soo galiyay xukuumaddu u dambeysay the last 3 years ki u dambeeyay oo Somaliland shilina ayaa jira xukuumadduna ama banka dhaxana wali may oranin anaguna maanta $50,000 baan suuqa gelinayna si sixirku u jabo waxaynu ognahay stock market keena haddaynu eegno Hargeysa waa caasimadii uma malaynayo maalintii sariflayaashu wax $50,000 ka badan in lagu kala sarifto yani waa lacag aad iyo aad u yar haddaad xisaabiso nin kasta oo sariflaa ka ugu badan waxaan aaminsanahay $500 isku celcelin bishii inuu maalin kasta sarifo iyo wax ka yar والعقد الترير مركا dhinaca sicir bararkana waxaan oran lahaa xukuumaddu iyaduna qaybteeda ha qaadato oo banka dhexe haddana lacag hayna shirkadaha ha ka codsato ha tiraahdo warbalbil gudaheed maalin walba 30,000 40,000 oo $50,000 suuq geliya oo laankan soo ururiya ku batay suuqa dhinaca aan leeyahay daabacad fara badan baa dhacdayna xukuumadduna khaladkeeda ha qaadato ciduna iyo khaladka saarine khaladkeeda ha qaadato iyadoo dib ay isu xisaabiso oo lacagta shilinka Somalilandka barorta dalka waxa lacag u daabacan hal la ogaado oo xukuumaddu ha ogaato anigu waxa baan aaminsanay xukuumadda lafteeda aan ogeyn shilin Somalilandka dalka dhex cararaya inta uu yahay shalayto waxaan tagay immigrationka yani xukuumaddu markay ka hadlayso mesela sicir bararka waxa weeyaan wasaaradda maaliyadda qaybta u fadhida immigration $1 bay qaadataa way iga diideen inaan laan siiyo baasaboorkii aan doonayay inaan qof u qaado waxay igu yiraahdeen $1 waana xukuumaddii oo wasaaraddii maaliyadda ee doonayay ahayd inay lacagta Somalilandka ah ay dalka lagu socodsiiyo waxaan tagay telesoomta waxaan ku iri $1 hooya Somaliland ay siiya waxay igu yiraahdeen ma hayno oo $1 baan haynaa dema New York baan joognaa hadday xukuumadda laankii diido Somaliland shilinkii oo ay shirkadihii diidaan Somaliland shilinkii dema shacabkun baa la baqtiinaya waxa weeye taa macnaheedu
shacabkan masaakiinta ah ee sixir bararka iyo dhibaatadu ay dishay ayuunbaa shirkado ganacsato xukuumaddu la isugu wada tegey dhinac kale 120 cisho ee uu madaxweynuhu dhammaystay waxaan ilaahay u rajaynayaa inuu muddada kalena dhammaystee madaxweyne waxaad sheegtay khudbadaada inaad dowlado shisheeye ah aad la soo gashay heshiisyo dhaqaalaha kobcinaya waa si wanaagsan hase yeeshee waxaan kale kuu sheegayaa oo aydan waxba ka qabanin laba arrimood baa 120 cishaba dalka xoog buu sii kordhay labada arrimood waxa weeye qabyaaladii oo yani cirkaa martay oo meeshan la yidhaahdo baraha bulshada ama social media waxaa ka dhex socda dagaal aan waxba la isula hadhin taas waxaan rajaynayey madaxweynaha dee doorashadii wuu helay waananu ku hambaliyeynay in marka ugu horeysa uu dadka shacabka u codeeyey axsaabta ay noqdaan oo uu ka dhigo oo xukuumaddu ka dhigto mar labaad dad midaysan oo dalkooda iyo qarankoodaba u midaysan oo walaalo ah mar haddii codka dhammaaday laakiin taa waxaa keenay cadaaladii markii ugu horreysay uu madaxweynuhu sheegay ee uu yidhi weliba dhinacayaan ku jiibsanaya waxaa la yidhi inan yar baa aabbihii dagaala kolkaasuu dabadda u booday markuu dabadda u booday ayuu ku yidhi aabbihii ha ku cuno waraabuu dabad inankii baa yidhi hay cuno hooyadii baa haddana tidhi ha ku cuno waraabuu iyo waar soo hoyo kolkaasuu yidhi hay cuno waraabihii oo dhegaysanaya oo ag jooga ayaa wuxuu yidhi waxaan la yaabanahay inanka yar aabbihii wuu ii ogol yahay inaan cuno inanka oo ha cuno buu leeyahy hooyadiina waxay leedahay waraabuhu ha ku cuno way ogosha inanka yar qudhiisuna wuu ogol yahayoo inaan cuno wuu doonayaa laakiin halka wax ka khaldan yihiin ayaan garan lahay waxa weeyaan madaxweyne waa lagula shaqaynayaa laakiin halka wax ka khaldan yihiin adiguna waad garanaysaa shacabkuna way garanayaan shacabku cadaalad bay doonayaan mucaaradkuna cadaalad buu doonayaa xukuumadda aad hoggaanka u tahayna cadaalad bay doonaysaa saad sheegtay laakiin halkay wax ka khaldan yihiin waa halka waraabahaasi halkay wax ka khaldan yihiin mar hadday saddexduba doonayaan inanka yare in waraabuu cuno shacabka iyo mucaaradka iyo xukuumadduna ay doonaysa cadaalad halkay wax ka khaldan yihiin ayaa la rabaa inaad saxdo waa cadaaladda kulley cadaalad ilaahun baa haya laakiin bal inaad isku daydo markaad tidhi waa layla shaqeeyo waa saxo xaq baad u leedahay laakiinse waxa weeye dee madaxweyne markay cadaaladdu suganto ee calalaqal la yaro dhadhoweeyo shacabkuna waa diyaar cadaaladdana ilaahay baa hayee bal adiguna waxaan odhan lahaa qalinkaaga dib ugu noqo taasina waa taa weeyaan waxaan ku gabagabeynayaa intaa aad iyo aad ba umahadsantihin wasalaamu calaykum